Nabadgelyo korkeena ha ahaato meel walba aad joogtaan. Soo dhawaada. Maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa taariikh kooban oo ku saabsan shirkadda Samsung. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar channel-keena. Shirkadda Samsung oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee adduunka ee soo saara aaladaha elektarooniga. Samsung waxay ku takhasustay wax soo saarka noocyada kala duwan ee elektarooniga warshadaha ah. Shirkadda Samsung waxa ay noqotay mid ka mid ah magacyada ugu waaweyn ee loo aqoonsan yahay in ay soo saaraan tiknoolajiyada noocyadeeda kala duwan. Samsung waxaa loo aasaasay in ay tahay dukaan ganacsi oo iibiyo waxyaabaha qutul daruuriga. Waxaa aasaasay Lee Byung-chul waxa uu ka bilaabay meheradiisa Korea sanadka markuu ahaa 1 Maarch 1938. Shirkaddu waxa ay ahayd ka ganacsiga badeecadaha kala duwan ee laga soo saaro gudaha dalka Korea loona dhoofiyo dalka China. Dagaalkii Korea kadib, Lee wuxuu ganacsigiisa ku balaariyay soo saaridda dharka waxa uuna ka furtay Korea. Wuxuu si xooggan diiradda u saaray warshadaha isagoo hadafkiisu yahay in uu dalkiisa ka caawiyo dib u dhiska dagaalkii kadib. Muddadaas ganacsigiisa wuxuu ugu faa'iideystay siyaasadaha cusub ee dalka. Lee ilaalintiisa ayaa qaadatay dowladda Korea. Intii lagu guda jiray 1970, shirkaddu waxa ay balaarisay howlaheeda wax soo saarka ee warshadaha si ay u daboosho baahida wax soo saar la'aanta ee ka jirta dalka, si ay si wanaagsan ugu tartamaan warshadaha dharka. Waxaa la aasaasay kaabayaal cusub. Sidoo kale isla muddadaas shirkaddu waxa ay bilaabeen in ay maalgashi ku sameeyaan warshadaha kiimikada iyo batroolka, taasoo shirkadda u siinaysa waddo horumarineed oo rajo leh. Samsung waxay markii ugu horeysay soo gashay warshadaha ugu wanaagsan ee soo saara elektarooniga 1969 iyagoo leh qaybo kala duwan oo elektaroonig ah. Alaabooyinkii ugu horeeyay waxay ahaayeen telefishin madow iyo caddaan. Dabayaaqadii 1970 ayay shirkaddu waxa ay si degdeg ah u bilowday fidinta tiknoolajiyadda. Sanadkii 1985 shirkadda ayaa sii kordhisay nidaamkeeda ganacsiga. Taasi waxa ay ka caawisay Samsung inay dhaqso ku noqoto hogaamiyaha adeegyada tiknoolajiyadda. Samsung ayaa sidoo kale abuurtay 2 machad oo cilmi baaris ah kuwaas oo ay ku ballaariyeen tiknoolajiyadda. Sanadihii 1990 Samsung ayaa sii wadatay ku ballaarinta elektarooniga suuqyada adduunka. Inkastoo guusha ay gaadhay sanadahaasi, waxaa sidoo kale soo food saartay fadeexado kala duwan ee ay ku jiraan laaluush iyo dacwooyin ka dhan ah xadgudubka. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay sii wadatay inay horumar ku sameyso tiknoolajiyadda iyo tayada wax soo saarkeeda. Sanadihii 2000 ee u ahayd shirkadda dhalashada taleefanka casriga ah ee Samsung, kaas oo aan ahayn shirkad wax soo saarkeeda ugu wanaagsanaa. Laga soo bilaabo 2006 shirkaddu waxay ahayd soo saarayaasha ugu sarreeyay telefishinka adduunka. 2010 taxanaha Galaxy wuxuu ku fiday adduunka oo dhan iyadoo la soo bandhigay Galaxy Tab. Taariikhdii koobnayd ee ugu hadlaynay shirkadda Samsung waa naga intaa. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar channel-ka.